السلام عليكم كلنتي wanaagsan kusoo dhaw muuqaalkii labaad ee qaybta labaad barashada Photoshop-ka asaasiga muuqaalkii hore soo daawaday dabcan waxa kaga soo hadalay qaabkii loo select gareeyo qayb kamid ah object meesha ku jira ama object dhameystiran intaba waxaan kala soo aragnay qaabkii loo sameynayo selection aad muhiim ku ah u save gareysanaysid muuqaalkan waxaan ku arki doonaa qaabka wax loo koobiyo marka Photoshop la joogo waxana loo soo baasti karayo dabcan wixii aan soo koobiyay aan meel kale u geyn karo baan ku arki doonaa hadii la yiraahdo marka koobi markaan Photoshop joogno wuxuu yahay shaqooyinka ugu muhiimsan ee la qabto in wax la koobi gareeyo ama la duplicate gareeyo oo la badiyo waxay ka mid tahay shaqooyinka isku soo noqnoqonaya marka wax qabsanaysid ama maxaan ku dhahay wax design gareynaysid ama wax edit gareynaysid waxyaala badan ah ku soo laabtay qofka user-ka ku soo laabtay kamid tahay marka aad bay muhiim tahay inaad fahansan tahay maxaa ku steps-ka loo maro iyo qaabka wax loo koobiyo iyo options-ka ay leedahay inaad koobisid maxaa ku dhahay object meel yaala oo meel kale ugu rartid intaas oo muhiim ah marka saan u bilowna waxaan u baahanahay inaan soo furno file-keeni aan ku sameyn lahayn maxaa ku raahday tutorial-kan aan practice ku sameyn lahayn waxaad tagaysaa folderkii ay ku jireen tutorial ku den markaan tagno wax ka sii dooranaa essential ku jira copy and paste waa casharka labaad open baad leeysa open marka dhahayd wax ku soo furmaysa dabcan file aynka oo eg fileka markuu noo soo furmo marka waxaan sameynaynaa copy-gi wuxuu leeyahay option laba nooc inaad u samaysid maxaa ku dhahay shortcut inaad u samaysid sida caadiga ah ee dokumentiyadii maxaa ku dhahay kale loo sameeyo sida word-ka ama maxaa ku dhahay waxyaalaha kale ee wax la koobiyo qoraalka caadiga koobiyo qaabka u sameyn kartay copy control c control v ay isticmaali jirteen oo isticmaalaya in la sameyn kartay iyo option kale oo Photoshop-ku dheeri ahaan u leedahay baa jirta la sameeyo marka waxaan ku bilaabaynaa markaad copy sameynaysid waxaad u baahan tahay marka koowaad inaad wax ku select gareysan yihiin waayo waxaad u baahan tahay inaad koobisid Photoshop ma garan kartaa hadaan aad u select gareyn oo dooran oo isticmaalin selection tools-ka qayb kamid ah oo markaa ku select gareyn particularly intaad u baahanay si gaar ah ugu dooran marka waxaan u baahanay inaan koobino qofkan buluugan labada kan casmahay kan buluugan baan u baahanahay surwaalka buluuga si qaba waxaan u select gareyno waxaan u baahanahay marka inaan ku soo select gareyno kan ku select gareyno kan kuma select gareyn karno kana kuma select gareyn karno waxaan ku select gareyn karnaa quick selection-ka kan oo kale magic wand-ka click baan siinayaa madaxiisa markaan doorto inta kale inaan ku daran rabaa waxaan soo qaadanayaa plus ama waxaan isla qabanayaa shift baan qabanayaa dan waxaan siinayaa click inta ay ugu biirtay intaasna waa ku biirtay lugtana ku dar dabcan selection-ki waa ii samaysan yahay marka waxaan u baahanahay inaan koobiyo intaas si specific inta u koobiyo oo isla meesheeda ku soo baasti gareeyo oo qof kale hada ka sameeyo qaabka u sameynaya waxay tahay laba option baan haystaa marka inaan control c shortcut ahaan ilaahdo oo qaabka igu soo koobismo oo then aan ilaahdo control v oo qaabka u soo sameysmo hadaad u fiirsatid marka hore wax maxaa ku raad dheeri kuma muuqanayo laakiin hadaad dhinaca layers ka fiirsid awal markii hore wuxuu ahaa background markaan soo koobinay oo copy sameynay waxay noqotay qof kale inoo soo baxay layer 1 baa loo bixiyay layer 1 salaam copy u bixi qofka copy magacaas kana bixinay copy marka saas inuu ku soo halkaas un baa ka arkay laakiin halkaaga ma muuqanayo si aad marka xaggan uga aragtay wana move gareysaa kan layer-kan move tool-ka soo qaado ku move garee waa kuma marka qof copy soo baxay markii hore kuma muuqanay maadaama meeshii control c control v marka isla meeshii maadaama ku tir wax kuma muuqanayo inaad adoo layer-ka ka arka maahay option-ka waa ku banaan yahay option kale waxa jirta isagana aad sameyn kartid oo ah inaad goortaad sa u select gareysid aad inta tagtid image inta tagtid edit baan wada aad halka copy ka dhahdid copy marka soo dhahdid isla meeshii inta ku noqotid aad soo dhahdid haddana maxaa ku raahday paste oo qaabka kugu sameysmo sa u sameysay copy qaabka u sameyn karnaa copy oo waa copy formalka ah software-da kale oo dhan ay lahaayeen maxaan ku raahday wax kasta qoraal dad copy-naysid wax copy-naysid maxaan ku raahday sida guud computer-ka looga isticmaalo haddii aan u baahdo ka waran inaan isticmaalo option kale oo Photoshop leedahay oo ay iyadu ku suurtagelinayso tusaale ahaan selection-kii markaan sameyno selection noo sameysay yahay haddaan alt qabto keyboard-kayga alt baan qabtay then aan mouse-ka ku kaxayo copy bas ay u sameysmay laakiin copy-gan kii hore wuxuu kaga duwan yahay ma sameynayo waxaan ku yiraahdaa
layer cusub kan kugu dhex sameynaya isla background-kii uu ku dhiganaaba ku dhijinaya dadan control x dhino marka caadi uga goyn adigu wuxuu ku sameynayaa isla meeshii uu koobinaya qofkii laakiin kama fujinayo layer ku dhiganani waxaan kaloo sameyn karnaa inaan dhahno control iyo j isla qabano kadib uu inoo sameeyo isagu layer cusub qof cusub meel kala jooga layer hadaa fiirsid control j markaan dhaho qortaan selectionkii sameeyo aan control j dhaho hal mar wuxuu sameynayaa qof cusub isagana sidoo kale magac u bixin kartaa layer kale ku noqon karaa gooniba u kaxin kartaa dabcan waa kaas ku muuqda labada option baa isticmaali kartaa marka inaad soo koobisid oo meel kale aad soo control c dhahdid oo control v dhahdid caadi koobisid iyo inaad halka tagtid option ka soo samaysid edit past copy ka soo samaysid iyo optionka saddexaad oo ah inaad aarta qabatid oo laba ka dhigtid iyo control j inaad qabatid iyadana oo usaa laba kaaga dhig saasa marka copy ka soo kartaa marka selection marka sameynayno waxa muhiim ah qofku inuu maskaxda ku hayo wax uu koobinayo wixii tahay oo uu si gaar ah u select gareeyo haddaan soo qaado square selection kana soo qaato qofkan select gareeyo u fiirso dabcan qofkaas oo dhameystiran ma select gareeyo selection ka hadda qofka ima saarna wuxuu xataa saaran yahay background-ka qofka la socda meesha ku dhigan yahay qofkan oo background-ka jaalla ah xataa selection waa saaran yahay hadda inta koobiye ka war inta haddaan koobiye control c iraahdo then aan control v dhaho meesha ka soo kaxayo maxaa la socda background baa la socda that's why bay muhiim u tahay inaad mar walba aad maskaxda ku haysid waxa aad koobinaysid oo selection saxan oo gaar isaga u ah aad sameyn kartid si gaar ah u samaysid haddaan si kale u dhahno inaad selectionkaas qaybta aad u baahan tahay tusaalahaan lugta haddaan rabo inaan koobiyo dabcan inaan lugtii selection gooni ugu sameeyo oo markaas gooni u doorto kadib aan koobiyo saasuu koobi gaar ay u samaysmaya oo lugtii caadi koobismaysa laakiin haddaan dhaho lugtaasaan u baahanahay dan aan iska labada lugood wada koobiyo labada lugood bay koobismaya marka mar walba inaad maskaxda ku haysid inaad intaas select garaysid ay ku koobismayso maadaama Photoshop uu selection ku shaqayso tufaaxan halkan ma ku aragnaa marka tufaax waa layer cusub layer gooniya meelna kuma dhigana markeedu waa layer maxaan ku dhahay gooni u taagan oo individual ahaan taagan marka layerkaas oo kale markaan rabo inaan koobiyo isagoo wax selection ay gaan baahan kan oo kale move toolka markaan ku doorto waxaan qabanayaa alt saas uu koobismaya ama waxaan qabanayaa control j saas uu koobismaya marka iyadu c control c iyo control v midna kuma shaqeynayso maadaama aad selection sameynay just aad move toolka ku dooratay noocaas kale waxaan u isticmaali karaa one layer ka gooni taagan darteed soo dhameystiran inaad koobisid layerkii xisaabanaysa alt isticmaali kartaa duplicate buu noqonayaa copy halka waa ka kartaa ama control j baan qabanayaa saas uu sameysmaya marka qaabkaas selection u sameynaysa ka waran haddaan baahdo in file-kan ii furan maahay maadaama Photoshop markaan joogno waxa la soo furi karaa halka Photoshop dhexdeeda ku soo furan kartaa in ka badan 1 document 3 4 5 document aan soo wada furan kartaa salaana haddaan control iyo new dhaho endaho oo file cusub saa ku sameeyo halkaas waxa igu samaysan file cusub ay samaysan file-ka cusub waxaan u baahdo ka hor inaan geeyo copy-gii oo caadi u copy isagana oo markii isla sidii uu sameeyo waxaan sameynayaa just waxaan sameynayaa sidii control c baan dhahayaa dabcan isaga baan tagayaa control v baan dhahayaa caadi uu dhexmaanaya marka copy-ga soo qaaday isla file-kii uu si copy-ga u imaanaya ama waxaan soo dhigi karaa control c aan wax soo qaban inta file-ka qabto caadi uu move tool ku qabto baan wadayaa waxaan geynayaa tabka document tabkan geynayaa goobtu ii soo baxo file-kii kale si fiican u fiiri waxaan geynayaa document-kan ka kaxaynayo tabkiisa waa kaasoo ma copy and paste in Photoshop ku qoran laakiin document kale maxaa qoran untitled oo qoran kaas haddaan rabo inaan isaga u kaxayo anoo waxba koobin hal ma move gareeyo waxaan baan move toolkan soo qaato soo activate gareysan inaan ku kaxayo ku jiido document tab korgeeyo goobtu ii soo baxo document-kii meesha cadayd ama document kale ii muuqdo baan sii deynaya qaabkaasaan move gareyn karaa anoo koobin marka waxaad ka garan kartaa maadaama laba document wax kala rareeno control j iyo alt iyo labada midna kama shaqeynayaan halkan waayo control j iyo alt wax isla hal meel bay ku file meesha jooga bay ka shaqeyn karaan qaabkaas wax loo sameeyaa copy iyo paste markaan joogno Photoshop waxna muhiim ah inaad practice sameysid
oo meeshaan dheeriga waxaan ugu talagalnay inaad practice ku samayn kartid oo faylashiisa soo koobisalka geysid si aad ay kugu fududaato inay hadhow shaqadaadii aad u qabsan kartid si fiican oo qof maxaa wax soo sameeyay aad noqotid. intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa muuqaalkii aan kaga hadlaynay copy iyo pastiga. muuqaalkan muuqaal ku xiga wax ka hadli doonaa qaabkan object u transform garan lahayn haddaan rabno size-kiisa weynayno, haddaan rabno inaan jiijino intaba qaabkan transformka u samayn lahayn baan insha Allah ku arki doonaa. waa inoo kulanti dambe oo xiiso leh.